mudane muuse biixi cabdi gudoomiyaha ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye ayaa shacbiga reer Somaliland ku hambaliyeeyay xuska sanad guurada 26aad ee ka soo wareegtay maalintii ay jamhuuriyadda Somaliland dib ula soo noqotay xorriyadeedii ee 18 May 1991 isagoo gudoomiyuhu shacbiga reer Somaliland ugu baaqay inay si mugla uga qayb qaataan qorshaha qaadaan ururinta qaran ee bulshada reer Somaliland loogu ururinayo dhaqaale lagu samata bixiyo dadka ay abaarta kululi ku daba dheeraatay shacbiga Somaliland guud ahaan waxaan ugu hambaleynayaa 18 May oo ah maalintii la dhawaaqay gool istaaga Somaliland iyo la soo noqoshada qarannimadii Somaliland 18 May iyo qarannimada Somaliland ku dhawaaqideedu waxay soo martay jid dheer oo halgan leh oo nabadeyn leh oo qaran dhis leh oo horumar dhinacyo badan leh horumar dawladnimo horumar dhaqaale horumar waxbarasho horumar kaabayaasha dhaqaalaha ah iyo gaar ahaan bulshada oo koboc aqooneed iyo nabadeed iyo horumarada oo kordhay iyadoo aynu horumar weyn gaadhnay haddana weli waxa inoo yaala qabyo badan waxa laga gudbi karaa waxa soo dhibaatooyin hor yaala midnimo isku kalsooni aqoon iyo faham inaynu isku tashano maanta 18 May dabaaldegii hore la soo jiray ku kadwaan baa la sameeyay hadii awal hore aynu ciidamo soo marin jiray oo dumaashaadka ciidan ku jiray oo dadku fantasiyo badan iyo kharash badan la gelin jiray abaabka maalinta maanta xoog iyo dhaqaale waxaanu bedelay inaynu gurbano dadka ay abaaruhu tabaaleeyeen ee dhibaataysan wixii dhaqaale in lagu duwo wixii xoog halka in lagu duwo iyo in la bilaabo maanta oo diyaar garowgii ka hortaga abaaraha oo dhir la beero ko siman ilaa 200 kilometer oo ay noqoto barbilow qof wala Somaliland heba oo qaangaar u geed beeri karo uu ku dadaal ku joogo haddana dhulkii dib u dhirayn oo naftii soo celin abaartu way sii baahaysa marka waa barbilow ka hortaga abaaraha iyo qorshayaasha laga hortagay oo qorshayaal waaweyn oo istabayaalo biyo xidheer biyaha yara cirkan kala soo oo keedsana isku filaysiina waxaan mar labaad hambaleynayaa dhammaan shacbiga Somaliland waxaan hambaleynayaa ciidamada qaranka oo marka horena ku guushan keenaya haddana ku ilaalinaya waxaan hambaleynayaa shacbiga dhalinyarada haween odayaal dawlad iyo xisbiyo oo ugu horeeyo odayga qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ilaahay waxaan ka rajeynayaa sanadkiisa inuu ku gaadhno xaaladan ka wanaagsan oo ka horumarsan dhinac walba iyo nabad iyo guur Somaliland intaa waxaan ku daray hambaliyada waxaan ugu baaqayaa shacbiga Somaliland meel ay joogaanba gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan qaran ururinta dhaqaalaha loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen waxay la tahay hadii aynu soo hagar baxno horta mar waa ajar oo suuq marna waa second waqta oo wax diiniga oo lagu leeyahay marna waa bini aadnimo oo dad tabaalaysan oo xaq u leh diiniyanba ayaa wax la siiyay tasaddexaad dhaqaalaha aynu ururinaa maanta wuxuu barbilow inoo noqonaya haddaynu inagu isku tashano inaynu in badan ka maarmayna in badan ka maarmi doono bariyada bini aadmi marka imika la qaylinayo leeyahay hay'adu waxana siiya intay qorsheynayaan intay soo ururinayaan intay soo rafarayaan baaha iyo dhibaatada dadkii dhamaynaysa marka inaynu weelkeena tolano oo dhaqaale ahaan u diyaar garowno abaaraha kuwa jooga wax ka qabanaa loo baahan yahay markaynu isku tashano wixii aynu gaar weyno معاون بهكرة لكن إنه ورثته شنو وحنحوجينا إن قف ولا بقى تمرتيسه كده دارو إنه كقايم قاطع قرانك